السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxay hayday waxaan salaamayaa dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan dal iyo dibadba. bacda salaan waxaan ka hadlayaa maxay hayday waddanka Soomaaliya. waddankii Soomaaliya waa ogtiin wax ka socda Soomaaliya aw baydo dhibaatooyin badan ka jireen, amni xumo ka jirtay, duruufo badan ka jireen ayaa iminka waxa dhacday in dawladda Masar oo dagaal in badan la doonaysa Itoobiya meel ay soo martona la'ayd oo Xasan Sheikh la saxiixday heshiis inay waddanka Soomaaliya soo galaan oo Itoobiya halkay kala dagaalamaan. marka xaaladdu meel xun bay maraysaa. waddanku maxay hayday halis buu ku jiraa maadaama labada dawladooda waaweyn la yiri ku dagaalama. mas-uuliyaddana waxaa qaadaya Muuse Biixi odaga la yiraahdo Muuse Biixi iyo Xasan Sheikh. sababtu tahay Muuse Biixi isagoo aan sharciyad haysanin caalami ah oo Itoobiya u saxeexay badihii waddanka oo ummadda Soomaaliyeed ku ciyaaray dhaxalkoodii iyo naftoodii halis geliyay khatar geliyay. maxay hayday marka sharci isagoo aan u haysan bay doonayaan inay soo galaan. taa micnaheeduna waxay tahay cidna waana ka baqay. dawlad tabar leh waana meesha ku arkay. dawlad dhisan oo Soomaaliyeed hadday jiri lahayd meelahaas oo kale ma soo mareen. marka waxa weeyaan waddankii khatar buu ku jira. xaggaana ma joogo, halkaana waxa jooga Xasan Sheikh iska dhulal aan siyaasad waxba ka garanay. wax uu siyaasad ka garanaya ma jirto. anigu waxaan ku talin lahaa in dadka Soomaaliyeed kala hadlaan waxay difaacan karaan difaacadaan, laakiin dawladda quwadda leh hadday halkan ka dagaalanto Soomaaliya dusheeda lagu dagaalamaya. hub waaweyn baana isku garaacaya. marka ilaahay ha u sahlo ummadda Soomaaliyeed baan leenahay. maxay hayday dadka xaggaa joogana xamar iyo Hargeysa kala jooga waxaan leeyahay reer Hargeysa Muuse Biixi ka qabtay waddanka. muqdishona waxaan leeyahay dadka muqdisho jooga oo dad xoreeyay ku sheegay Xasan gumaysigu gacanta idin geliyay waddanka ka qabta. dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed gumaysigu gacanta maanta u gashay meel halisana u geliyay maanta. xaaladdu meel xun bay maraysaa. waxaan leeyahay waddanka laga qabto, waddanka ka qabta si degdeg waddanka looga qabto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.